سورة وسورة مكية قرآن كقيتي سمكي قابي كم التهي قيامة كور رميسا قصة النبي الله موسى إيا فرعون بي وحير كتابانيسا كدبنا قيامة ديب لو قلنا قندونا أو لقو قبين دونا معنا والنازعات وانقود عرتب رب سبحانه وتعالى والنازعات ملائكة السيبتان قود عرتب يعني قال هذا أرواح ذو السيبت غرقا يعني منشوبت أي كم منشوب يسوكو سيبت يعني كحل داران شو أي كحل داران يسوى والنازعات ملائكة السرق فريسي بانقود عرتب أما السرقين فريسي نشطا سرق فر والسابحات ملائكتي دبالانيسي بان ku dhaartay sabhan dabaalasho hawada dabaalanaysa فالسابقات ملائكتي hormaraysay baan ku dhaartay sabqan hormarid فالمدبرات ملائكتي maamulaysay baan ku dhaartay amran arin maamulaysay waa arinka koonka aw shay lagu dhaaranay ee la tubcathunna walaydin soo saari intaasan ku dhaartay wala in nolol dawal dib leedin ku soo celin doona sida fiican waxa weeyaan in sifaadkan oo dhan la siiyo malaa'ig laga wada dhigo laakiin hadal baa ku jira culimada qaar baa si kale u dhigaya wan nazi'ati waxa laga wadaa labada aayadood ee hore nazi'ati qarqan iyo nashitati nashtan waxay ka hadlayaan malaa'igta nafta qaada oo nafta markay qaadayaan ruuxay ka qaadayaan hadduu gaal yahayna qaab bay uga qaadaan hadduu yahay ruuxu mu'min yahayna qaab kale uga qaadaan نازعات غرقا توا قال كالنفتي سيبي قاضيا مركي سيبيان ونفت كسيبيان سي اي كحيل ديرادين بي معناه وحويان اسيبيان وأذك يعني غرقك وحل هذا أغرق في النزع بالله سيبيد الروح مركو كحيل ديرادو او كمان شوبو او سيدي بيو او كلا او مقورتو وضع نحقلو ايا الليلة هذا أغرق في النزع بالله صاصي معنا غرقا تمركا واكو حيل ديران شهوة محايا لي نفط قالك مركي لي هذا الصباح سيدا حديث كان النبي يقول حديث البراء بن عازب وإمام أحمد وصوصاري نفط قالك الصباح مركي يداد شركة كوكا العريس شركة مركي كوكا العررته وحي أبهيه ملائكتي إني أودي حوق استعمالات او سيدي مرو حنان او كاقب صدي او كالتو سيدي اللوغة سو سيبو كالتو ساسو كالتي اوسو بحينيان او اوسو سيبيان سو سيبيدا اي حوغ كوسو سيبيان بالغا ودا غرقان تمر ساسو معنا سي اي كما شودين او كحيل ديرادين او ينا وحبا لهارين ايي نفتا قالك كو سيبيان مركي جيركا كو عررتو كدي سيدا ادق باي اوغا سو سيبيان ناشطاتكنا waxa weeyaan waa malaa'ikta nafta mu'minka siibis markay siibayaan oo bixinayaan si fudud bay u bixinayaan hay'ad sida xadiiska Baraa ibn Aazib Ahmad soo saaray kutusayo markii ay yaani wax way u yimaadaan mu'minka waxay ku leeyihiin naftan wanaagsanay ee jidhka wanaagsan ku jirtay soo bax ilaahay naxariistiisa u soo bax ridaha ilaahay u soo bax janno ilaahay u soo bax aayar bay iskeenaysaa markaas ay si fudud u soo baxaysaa والناشطات نشطا نشطك أسل كيسا وحل إلى هذا يعني قنتينتا أما السرقينتا وحل إلى هذا سرقة فريتان كذا ليلة يعني مركات قنودو قنود كقار كما قنود كواكل قدسين قنود كمركات دونيسو حرق انتات قنودو الدونيسو سيد دق دق إلى ضفرته محالة سمية يعني وحوي السرقين باللوية لا سمع السرق باللوية لا أما وحل لوسي السرقين باللوية لا لبضو ولا إلى مركا انتات حرقي في دقبته بعد هالمرتشيديس inaad ku rafaadoodo cidida isticmaasho oo markaad furayso ma baahan xarigan baad qabanaysaa hal mar baad dhufanaysaa waa furantay Soomaali kabahan aad qabtaan Soomaali sida loo xidho qaabka way macna yaani siriq baa loo yeelaya ama surgin baa loo yeelaya aayar baa la qabanaya waa furmay marka wanna shitaati malaa'ikti siriq furaysay ama surgin furaysay nashtan yaani siriq fur ama surgin fur si fudud bay u furaysaa nafta mu'minka oo nafta ay uga saaraysaa jidhka uga saaraysaa malaa'iktaas ku dhaartay Rabbi subhanahu wa ta'ala saabixaadkuna waa malaa'ikta dabaalato oo xagay dabaashaan meesha loo diray way dabaashaan hawadaasay dabaalanayaan sida ruux biyo dabaalanayo kaleeto hawadaasay jiirahayaan oo dhex dabaalanayaan markay hawlaha koonkan fulinayaan qaar baa wixii loo soo diray hawadaasay dabaalanayaan qaar baa yaani ilaahay cibaadadiisa u socdiyo majaalisu dhikriga hawadaasay dabaalanayaan
qaar baa hawlo kala wada oo roobka iyo nabaadka iyo kala wada hawadaasay dabaalanayaan wasaabihaati sabhan dabaasha ay hawada marayaan ayaa laga wadaa fasaabiqaati sabqana waa isla malaa'igtiyo waxay u hormaraan oo u tartamaan iimaanka iyo khayrka iyo taacada iyo majaalisu dhikriga iyo meelaha quraanka lagu hayo meelaha khayrka ay u kala tartamaan wasaabiqaati sabqan tartankaasay ku jiraan oo ilaahay daacadiisa u tartama subxaanahu wa ta'ala falmudabbiraati amran waa sifo kale oo malaa'igtu leedahayo kownkan arrimihiisay dabbaraan oo maamulaan ila ilaahi subxaanahu wa ta'ala isaga arrimaha gacanta ku hay laakiin rabbi hawlahan kownka ka socda malaa'ig buu soo diray qaar waxay dabbarayaan oo ka shaqeynayaan bini aadamkaasi wax ka qorayaan shaqo kale male qaar saan soo sheegnay majaalista dhikriga meelaha khayrka lagu hayay xaadiraan qaar waxa weeye roobka iyo waxaasay kala wadaan oo dabbarayaan oo maamulayaan dhinacidaasay maamulayaan qaar nabaataadka soo baxay dhulka maxaa ka soo baxay maxaa galay maamulayaan qaar waxyigay maamulayaan oo soo gaarsiiyaan rususha soo gaarsiiyaan falmudabbiraati amran kuwa waxbay dilayaan kuwa waxbay nooleynayaan oo ruuxii macnaha dhalanayay bay nafta gelinayaan maamulka koonka ka kala socdo oo dhan waxa kala wada waa malaa'ig falmudabbiraati amran ayaan ku dhaartay rabbi subhanahu wa ta'ala malaa'igta tilmaamaha le baan ku dhaartay waa laydin soo saari way soo saaridiina shaki kuma jiro intaasan ku dhaartay macna marka waa tilmaamo kullina malaa'ig baa wada leh waxa la yiraahdaa shaygu hadii sifaadkiisu kala gedisan yihiin sifaadkiisu hadii kala gedisan yihiin waxa la isugu cadfi karaa sidii isagoo daatadiisu kala gedisan too kale saas macna يعني وحوي وأسلوب معروف والنازعات ملائكتي سيبي سيبان كدارتي النفط قالده غرقا يعني مانشوت أي كم مانشودين مانشوت يكحل ديران شو أي كحل ديرادين كسيبهي والناشطات ملائكتي سرق فريسي أما سرقين فريسي بان كدارتي نفط مؤمنك نشطا سرقين فر أما سرق فر يعني سيف فضد أفريسي وشركة أوجا فريسي وأوجا ساريسي بان كدارت والسابحات ملائكتي دبالانيسي بان كدارت هودا سبحا دبالش فالسابقات ملائكتي هرمريسي بان كدارتي وهرمريسي خيراتك سبقا هرمريت إيمانك إضاعاتك وهرمريون ترتم بي كجران فالمدبرات ملائكتي ماموليسي بان كدارتي كونك يعني فالمدبرات ملائكتي ماموليسي بان كدارتي امرا ارمها كونك ارمها يعني waxa way koonka malaa'ikta maamusha ayaan ku dhaartay ee la tubacadna waa la idin soo saari yawma maalin baa la idin soo saaray tarjufu ay gilgilanayso arrajifatu ti gilgilanayso tatba'uha hal ay raacayso arradifatu ti fangalaysay ee daba joogtay qulubun qalbiyal yawma idin maalinkaasi waajifatun tuwalwalsan way oo baqaysa أبصارها إندهدنا خاشعة تدليسوي يقولون وحي إليهن أئنا أنقو لمردودون كل علينا يميان نهي في الحافرة وذيقذي هراء شتكي هراء وذيقذي هراء ميادون لو علينا أئذا مقورتي بان العلينا كنا آنو أهانو عظاما لفأنو أهانو نخيرة أو باليوبي أو بلولي لفبلولي مركانو النغضون رابخي ما مركزان العلينا قالوا وحيد هذا تلك مداسي إذن مركاسي كرة واعل خاسرة أو خسارتي واعل خسارتي أو لغر رقمدي فإنها يضب رب سبحانه وتعالى زجرة وقيل واحدة أو مدعة وهل مروا لقيليون وحرق بماح فإذا مركبهم يجو بالساهرة أرلدي سوتشيدي سيبك سجين أرلدي سوتشيد مد اللي يراهدو أيها كسجين هنا مركبة شوغان قيلنا مركب نحن يعني وحوي يوم ترجف الراجفة قيامته وحي دعيسا oo laydin soo saaraya waa maalinka ay gilgilanayso gilgilatadu gilgilato iyada gilgilanaysa leeyahay gilgilatadaasi wax weeyaan waa afuufista hore ee adduunkan iyo koonka lagu gabagabaynayo ayadana way gilgilataa koonko dhanna way ruuxdaayo way gilgishaa saas macna taasi markay timaado maalinkaas la soo saari doona حال أي كذب تجيسو مدة أي راعيسو الرادفة رادفتنا وأفوفست الله بعد سورك الله أفوفيه يعني وحوي إلى الرادفة سيد هذا وحلي الرد في وحلي هذا لبض الروح الجديد كإسلا صارا مركو جديد كذودتي ومتجدال كصفولا ليدا هذا الردفة مركو وحل جودا تي هراء أدون كلجو جبيني وايد عادي
midba daba joogto oo gadaal ka saaran oo waa midii lagu soo nooleeyo adduunka dib loogu soo celinay tatba'uha ar-radifa afufisti labaad way rasuulkeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam hadith tirmidhi iyo ahmad ay soo saareen min hadith ubay ibn ka'b ayaa nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi wuxuu yiri ya ayuha nas habeen barki saddex meel habeenka marka loo qaybiyo laba meelood markay tageen oo hal meel laaban tahay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ya ayuha nas wardadow اذكروا الله والإلهي حسى يعني وحي رسولك صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه بنبي صلى الله عليه وسلم ورتي الروحانيسة ويتمد فانقشدينا ويدبتشوكتايو قد كدبت تمد geeridii iyo waxay wadatayna way timid eedada hurdada ka kaco ilaahay xusabu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi marka radifadaasi waa afufista labaad way maalinka isaga quluubta qaarkood waa tu walwalaysa oo baqaysa waa quluubtii adduunka markay joogtay aan soo shaqaysanin oo hada meesha ay waxba oolin way baqaysaa oo way cabsanaysaa indhaheeduna way dulaysan yihiinoo way hoganayaan waa ilaa markii uu ruuxu baqayo indhihiisana waa ka muuqdaa baqdidu way ka muuqataa waxay leeyihiin inna la marduduna fil hafira hadalkani ma aha marka aakhira la soo saaro inay dhahayaan ee waxa laga wadaa yaquluna adduunka markay joogeen waxay dhihi jireen sababta nimankani ay la baqayaan aakhira markii la soo nooreeyay indhahooduna ay la hoganayaan oo la xaqiran yihiin wax kale ma adduunka markay joogeen waxay dhihi jireen inna la marduduna fil hafira ma intaan dhibanana la soo celin doona xaafirada waxa la yiraahdaa shay kasta awalkiisa iyo bilowgiisa xaafira la yiraahdaa ma yaana la celinaya oo xaaladii hore aan lagu celinay xaafirada waxa la yiraahdaa jidka yarka ee wadiiqada ee xoolaha lugtoodu ay qodo oo bixisa la yiraahdaa marka ma jidkii wadiiqihii aan ku nimid iyo noloshii hore dibna loogu celinaya miya ma intaan dhimanno baan noloshan dibna loogu soo celin doonaa jidkii dibna loogu soo celin doonaa miya ma dhici kartay dhijir ma markaan dhimanno oo lafahanagu bololaan oo raabakhaan ma markaasana la soo celin doonaa war waxa waan suuroobi karin hadayba taasi jirto tilka idan karratun khasira waa soo celin khasaartay way yani waa lagu khasaaray waxay waxba looma diyaarsanin ma hayna rumaysan laakiin waxay leeyihiin wax jira wax dhici kara ma wax dhici kara ama suuroobi kara ma nolol ma jirto soo celin ma jirto saasay macna rabbi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fa inma hiya zajratun wahida waxana ilayya bayyin ee iyagu ku wareersan yihiin ee ay leeyihiin say ku suuroobi kartaa waa un hal qaylo mar labaad bal lagu celin maayo soo baxay baablee rabbigiin baa idin yeeray soo baxa wabillahi tawfiiq qaylo labaad lagu celin maayo waxay iyagu moodayaan la adag waaba intaas ku sibantahay macna mar alla markay qayladaas u dhacdo fa idahum bisahirati dhulka korkiisa ay joogan sahirada culimada wa tafsiirka intooda badan waxay leeyihiin al-ardu wama 'alayha balila yani wajhu al-ardi balila wajhu al-ardi dhulka korkiisa la yiraahdo sahira maxaa dhulka loogu magacaabay waxay leeyihiin sahira waxa loogu magacaabay dhulka bahgooyada cilada ruuxu markuu marayo socoto yahay inta badan ma seexdo waa soo jeeda maxaa yeelay hadii dhul bahgooyo cilla aad seexato meeshaas hada waxa wad ku dhiman dhulka cillada bahgooyada socod baa lagu marayo lagumana nasto lamana seexdo sahiro waxa loo leeyahay dhulka la isku xisaabin doono ayaa wuxuu yahay dhul lagu soo jeedi doono sida dhul yani bahgooye oo cilla oo kale to saxara dhulkaas oo kale to ayaa la isku xisaabin doona sahirada dhulkaas laga wado waxa soo marnay yani yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat dhulkana waa la bedelaya samaawaadkana waa la bedelaya dhul kala la isku xisaabinaya oo ka gedisan midka oo ruuxna astaan uu garanaya ayna ku oolin sida nabiga sallallahu alayhi wasallam wax astaan oo garan karto kuma taal buurahan iyo dhulkan iyo wadooyinkan iyo dhulkan naqaanimo bahab dhul kale taa la goglaya dhulkaas la isku xisaabinaya saahirada taas laga wada macna meeshaas markiiba isugu iimaanayaan markii lagu dhawaaqo lagu qeeliyo macna tayib yawma malin ayaa la soo saaraya tarjufu ay gilgilanayso arrajifatu ti gilgilanaysay wa tatba'uha hal ay raacayso arradifatu ti fangalaysay daba joogtayna ay raacayso qulubun qalbiyal yawma idin maalinka waajifatun tuwalwalaysa oo baqaysa way absaaruha aragyaalkeeduna khaashi'atun tudullaysa way yaquluna waxay leeyihiin oo dhihi jireen way adduunka markay joogeen a inna anagu la marduduna kuwa la celinaya miyaanu nahay
في الحافرة وذيقه هرمي أن لقو عليني أما في الحافرة حالتي هرمي باللوغة ونلوش هرمي أن لقو عليني أئذا كنا ما مركان أهانو عظاما لفو نخيرة أو باليوذي أو رابخي ميان نبعثنا لسوء عليني قالوا وحدثا تلك مداسي إذن مركا كرة علوية خاسرة أو خسارتي يدي خسارة أطيرين المعنى والله خسارة بكوضا فإنما هي يد زجرة وأنقيل واحدة أمدة مر لباد بلغو علي الماء فإذا مركبا هم إيو بالساهرة بيكو سغيهن نلكي بيكو سغيهن عصباء اللغو سوچيده بالساهرة سوچيدو أي كو سغيهن هل أتاك مكوي من نبي محمد حديث موسى نبي موسى شاكديس مكوتم إذ وقت أشاكاهن ناداء دواقي ربك ربك دواقي ناداء دواقي هو موسى دواقي ربه ربك دواقي بالواسد تجي دواقي المقدس إلى طهيري طواها مجعيس مع الويل اذهب تقبلي إلى فرعون حق ذات عيلي إنه فرعون طغى وقوقيه فقل واحد ترى هذا له إساق واحد كل هذا فقل ده واحد كتر هذا هل لك مكوس نادي فرعون إلى أن تزكى إلى استسكيسه إلى إصبهرته أو شركه aad iska dahirto iska nadiifiso ma ku sugnaato mar rabtaa oo ahdiyaka anuguna aan ku hanuuniyo ila rabbika rabbiga xaqiisa aan kugu hanuuniyo oo ku tuso oo fatakhsha marka aad baqdo fa araawu tusay muuse hu fir'aun wuxuu tusay al ayata ayadi al kubra ee ugu weyneed ayada oo u shiic fakadaba markaasuu beeniyay yani waxa weeye fir'aun وبينيي وعصاونا عاسي ربه وضاعلي وكتغ ثم كدبنا أدبره ودبتشيدي إيمانكي بكدبتشيدي يسعى حال ويهي أسوغ أصعده دلالية فحشر مركزو سو كل ميي صاحرينتي فناداه رواقي فقال وحولي أنا ربكم ربي بنانوغوهي ربي الأعلى أغو سرين تفلنا ربي ألغا سرين واني قبول فأخذ وحا قبتي هو إساق الله قبتي فرعون الله قبتي محوكو قبتي نكال الآخرة مدي الدنبي عقوبة ذي اللقو عبر قادني مد الدنبي نلش الدنبي إيا دارت الدنبي عقوبة ذي اللقو عبر قادني والأولى إيا دارت هراء عقوبة ذي اللقو عبر قادني لولا عقوبة أي الله سبحانه وتعالى كو قبتي إن في ذلك أرنك حديث وحا كسغا لعبرة شيء لغو عبرقاته لمن عد بيقول سغنتا يخشى أو بقية أما لمن عد وكو عبرقاته يخشى أو بقية قصدي نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي فرعون با انتاس لقتابت وريم نوسى مرنا يضفى فحسن نبي وحنا هذا ميشا لغو شيغيا نبي صلى الله عليه وسلم با لغو دجينيا ولغو تسلينيا ولغو تحسينيا يعني waxa la leeyahay hadii laga hor yimid oo lagu la dagaalamay oo lagu raaci waayay hortaaba sida rasuusha loola dhaqmi jiray qisadii nabi Muuse midan ah waxa laga rabaa nabi Muuse sidoo u sabray oo kale inaad u sabirto يعني waxa qisas kuba sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam loogu soo dejiyay faa'iidadu taas weeyay macnaha ku tago nabiga sallallahu alayhi wasallam hal ataaka maku yimid nabi Muhammad oo xadiisu Muuse sheekadiisi maku timid warkiis id waqti u sheekaahid ناداء دواقي هم موسى ودواقي ربه ربي با ودواقي بالوادي تجيب ودواقي المقدس إلى طهيري تجا مطهرك وكانوا صمرنا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وينك صمر يعني وحي وتجي نبي موسى عليه السلام مركو ربي الله الله oo isagoo oo soo noqdo Madian ka soo noqday xaaskiisina la socoto jidka markii intuu ka leexday oo iftiinka arkay meeshii iftiinku ka baxayay ee looga dhawaaqay halka way toga muqaddaska ee rabbi subhanahu wa ta'ala uu dhawaaqay ana rabbuka uu ku yiri muusa rabbiga way waxa kula hadlaya waxyigu meeshu ku bilowday togaas muqaddaska way macna waana tuur Siina yani waxa dhulkan Siina la yiraahdo yani waxa way meeshaasi buur ku taala iyo tog halka ku yaala way dhulka laga hadlayo waa dhul barakaysan إذ وقت وحديث وشاكأها ناداء ودواقي ربه ربه ودواقي بالوادي تجيب ودواقي المقدس إلى طهيري طوان أها مجعس طوان ومجعي تجا اذهب تقبلين إلى فرعون آد محايلة إنه إساق طغى وقوقيه إلا نبي موسى عليه السلام مدين مركو كسو تجيو
lixda markuu soo marayo baa la diray mooye madyan markuu ka soo degayo ma dirna lixda markuu ninuu wadankiisii ku soo noqday buu markaa yahay lixda markuu ku soo socdo uusan soo gaarin wali ardu misra uusan soo gaarin markaasaa lagu bilaabay oo la yidhi fircoonkaad ku socota aad oo gaadhsii arrimaha saas macna waa labadii muhiimadood ee nabi muuse loo xambaariyey mid ka mid ah fircoon inuu xujada ku ogo iyo reer bani israa'iil inuu gumaysiga ka saaro innahu fircoon taqaa waa qooqay oo faqul waxaad tidhahdaa ood isaga ku tidhahdaa hal laka ma kuu sugnaaday fircoonow hal laka xoogaa nin jabbaar ahoo dhib badan oo dadka laayo oo kibiraaniya markaad la hadlayso hadalka laguma adkeeyo maxaa yeelay yani kibirkaas cizatu nafsi baa qaadayso inuu diiday u badan tahay adigu sabab ha u noqonin hadduu diiday xataa hadal adag ha ku dhih ama ma ahee adiga laftaadaaba laga yaabaaba intuusan warkaagaba dhagaysaninba inuuba ku khatar geliyo marka hal laka baa la yidhahdaa hal laka ma leedahay ma heli kartaa saas way macnaa hal laka ma kuu sugnaaday raqbatu way macnaa doonitaan ma kuu sugnaadayoo ma rabtaa ilaa an tazakaa inaad isdahirto warniyo inaad isnadiifisood isdahirto ma rabtaa saas way macnaa oo waahdiyaka aan ku hanuuniyoon anna ku tuso ilaa rabbika rabbigaa xaggii aan ku tuso jidkaad rabbi u marin anna aan ku tusoon kuu caddayo oo fatakhshaa aad baqdo ood rabbigaa ka baqdo ilan jidka marka lagu caddayo unbay baqdini kaa suuroobi kartaa ayib fa araahu wuxuu tusay nebi muuse meeshaa markay marayaan waa ka yidhi itus maxaa caddaynood haysataa iyo mucjizo fa araahu wuxuu tusay araa muuse wuxuu tusay hu fircawn alaayata mucjizadiibuu tusay alkubraa ee mucjizooyinka ugu weyneyd waa ushii wey macna mucjizooyinkii sagaalka ahayd ugu weyneyd oo ushiya ayuu tusay fakadaba waa beeniyey fircawn qalbiguu ka beeniyey waa diiday wacasaa waa caasiyo xubnihiisiina waa ka caasiyo inuu camal ahaan iyo dhaaco u raacana waa diiday beenin iyo wuxuu isku daray cisyaan uma kadibna adbara wuu daba jeediyo iimaankiibuu ka daba jeediyey yascaa xaaluu soconayo oo uu dadaalayo dadaal buu markaa galay sidii uu uga hortegi lahaa muuse iyo wuxuu wato faxashara wuu soo kulmiyey culimadiisii sixirka ayuu soo kulmiyey fanaadaa markaasuu dhawaaqay markii laysugu yimid oo maalinkii lagu ballamay inta laysugu yimid khalaa'iqdii meesha ay tuban tahay ayuu marka khudbadan jeedinay wuxuu leeyahay faqaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum rabbigiin baan ahay rabbigiinii alaclaa ee ugu sarreeyey rabbiyaasha yani wax iga sarreeya ma jiro muuse warkan uu wado oo mid samada jira oo adduunkan lahoo aniga iga sarreeya wuxuu akhriyay ma jiro ana rabbukum alaclaa wax iga sarreeyay ma uu jiro macna wakan soo maray maa calimtu lakum min ilaahin hayri wax ilaah oon aniga ahayn idinma ogi aniga unbaa ilaah idin ah sidaas daraaddeed aclaa markuu leeyahay macnaha kama wado inuu jiro ilaahyo yaryaroo uu rumaysan yahay ay jiraan ilan aclaa ka ugu sarreeyaa jira yuu noqonaya kuwo kaloo laga sarreeya marka waa inay jiraan sidaa kama wado anigu waan u sarreeya mayaane kuwo kalaa jira kama wadee wuxuu ka wadaa aniga keligay unbaa ilaah idin ah sida aayaddaa kaleba ay kutusaysa macnaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri macna faahadahu llahu alla ayaa qabtay wuxuu ku qabtay nakaala alaakhirati daarta dambe ee aakharo cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay waluulaa iyo daarta hore adduunyo cuquubadeedii lagu cibro qaadanayay buu rabbi ku qabtay subxana watacaala nakaalka waa cuquubada iyo ciqaabta loogu talagalay inay dad kale wax ku qaataan oo ku waansamaan ruuxa lagu samaynayo ee lagu dhufanayo qasadku isaga un ma ahee laakiin waxaa loola jeedaa kuwa isaga ka dambeeya inay wax ku qaataan nakaalka cuquubadaasa la yidhaha macnaha marka isaga yani laba cuquubaa la isugu daray midii aakharo iyo midda adduunyo ta adduunyo kuwii noolaa iyo kuway gaari doontaa ku cibro qaadanaya ta aakharana hade mar haddii laynoo sheegay fircoon in saan loo galo qabrigana uu ku cadaaban yahay aakharana waxaa sugaya laynoo sheegay soo wax lagu cibro qaata maa marka ciqaabtiisa aakhare la mariyeyna waa laynoo sheego cibro wey tii adduunka la mariyeyna waa cibro saas way macnaha ina fii dalika arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan lacibratan shay lagu cibro qaato ayaa ku sugan licibratan cibro qaadasho ayaa ku sugan liman cid bay ugu sugan tahay yakhsha oo baqaya ruuxa baqaya oo ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabkiisa ka baqaya ayaa arrintaa darsi ka qaadanaya oo kuwaana qaadanaya wax ka faa'iidaysanaya sidaas way macnaha a antum ashaddu khalqan am isamaau banaha waxaa dib loogu noqday arrintii ahayd isa soo saaridda sideedaba qur-aankii xilligii maka soo degay aad wuxuu ugu xeel dheeraanaya oo ku celcelinaya
mabda'an bacsiga isa soo saaridda iyo nolosha dambe maxaa yeelay bulshadiiba waagaa diidanayd arrin lagu kari waayay bay noqdeen nimankii haddii mabda'a ay rumeeyaan wax badan oo kale ayaa ku xidhan oo daba yaallo ay qasab rumeynayaan laakiin maxaa yeelay mabda'aasi wuxuu furo u yahay waxyaalo fara badan iyo mabaadi fara badan buu furo u yahay kaasaa marka xoogga la saaraya bal aakhira inay rumeeyaan waxaa la yidhi marka aantum idinka miya iyagaa lala hadlaya kufaartii quraysh aantum idinka miya ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase as-samaa'u samada ayaa adayg badan xagga abuurista banaaha alla waa dhisay rafaca wuxuu kor yeelay samkaha qaradeeda ama koraynteeda fasawaaha markaasuu simay wa aqtasha wuu madoobeeyey laylahaa samada habeenkeeda wuu madoobeeyey wa akhraja wuu bixiyey duxahaa barqinkeeda maalinteedana wuu bixiyey wuu iftiimiyey waalarda dhulkiina bacda dalika samada kadib ayuu daxaha fidiyey akhraja wuu bixiyey minhaa arlada xaggeeda wuxuu ka bixiyey ma ahaa biyaheedii buu ka soo saaray iyo wa marcaaha daaqeedii waljibaala buurihiina arsaaha wuu qotomiyey dhulka korkiisuu ku qotomiyey mataacan raaxayn lakum idinka laydin raaxaynaya darteed iyo wali ancaamikum xoolihiin idinkiiyo xoolihiinna laydin raaxaynaya macnaheedu waxa weeye haddii aad ka doodsan tihiin soo noolayn dambe oo aad leedihiin yaa kari kara markaan dhimanoon noqono lafa bololay yaa dib noo soo celin kara oo dib noo abuuri kara haddaad leedihiin sideedaba waa su-aal laydin weydiinaye idinka iyo samada kiineebaa abuuristiinu adayg badan tahay maxay odhanayaan qasab waa inay yidhahdaan samadaa naga abuuris adag hadda samada allah dhisay jurmigeeda iyo qaradeeda iyo koraynteedana ilaahay baa subxaana wa tacaala kor yeelay sidaa ay u siman tahayna ilaahay baa u simay oo u dhammaystiray ayib allaha intaa sameeyey habeenkeedana mugdiga ka dhigay maalinteedana iftiinka ka dhigay buurahana dhulka qotomiyey soo ma jeed yani waxaan dhihi lahaa yani dhulkiina goglay samada kadib dhulka goglay ka soo saaray biyahaad cabbi lahaydeen iyo daaqii xoolihiinna cuni lahaayeen buurahana ku qotomiyey intaasoo dhanna u sameeyey inuu idinka idiin raaxeeyo iyo xoolihiinna allaha intaa isku rakibay idinkan tabarta daran inuu dib idiin soo nooleeyo oo dib jidhkiina u dhiso soo ma awoodi karo jawaabtu wahaa lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaasi samaawaadka iyo dhulka abuurkooda ka weyn abuurka bini aadamka bini aadam muxuu sheegay waa waxaas tabarta daran tacbaankeed saas macnaha aantum idinka miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase as-samaa'u samadii ayaa adayg badan xagga abuurista banaaha alla waa dhisay subxaana wa tacaala samada isagaa sidaa u dhisay rafaca wuxuu kor yeelay samkaha qaradeeda ayuu kor yeelay samkiga waxa la shayga qaradiisa shayga qaradiisa ayaa la yidhahdaa samkiga ama waxaa la yidhahdaa shayga sarrayntiisa korayntiisana waa la yidhahdaa rafaca alla kor buu u qaaday samkaha samada qaradeeda ama koraynteeda fasawaaha markaasuu simay oo uu macnaha waxa weeye khalal iyo dulduleel oo dhan ka ilaaliyey oo rabbi subxaana wa tacala si fiican isugu rakibay wa aqtasha wuu madoobeeyey laylahaa samada habeenkeedii habeenka samada maxaa loogu tiiriyey lianna habeenku wuxuu ku imaanayaa qoraxdii oo tagtay qoraxduna kor bay jirtaa habeenka marka waxaa iska leh samadaa iska leh wa aqtasha alla wuu madoobeeyey laylahaa samada habeenkeedii wuu madoobeeyey oo mugdi buu ka dhigay wa akhraja wuu bixiyo wuu iftiimiyey duxaahaa samada barqinkeeda maalinteedii baa laga wadaa samada maalinteediina wuu bixiyo wuu iftiimiyey habeenkeediina wuu madoobeeyo mugdi buu ka dhigay isagaasaa wax u maamulay waalarda dhulkii bacda dalika samada abuuristeeda kadib ayuu daxahaa fidiyey akhraja wuu bixiyey oo samaynaan soo marin suuratu fusilad baynu ku soo marnay yani uma istawaa ila asamaa dhulka markii laga shaqeeyo oo laga soo warramay kadib baa la yidhi markaa kadib buu ilaahay samada u qastay halkaa maxaa ka muuqata marka waxaa ka muuqata inuu dhulku horreeyey samaduna ay dambaysay sooma halkana maxaa ka muuqata waalarda bacda dalika daxahaa arladu inay dambaysay baa ka muuqata cabdullahi bni cabbaas baa la weydiiyey wuxuu ku jawaabay xagga abuurista waxaa ku horreeyey dhulka ku horreeyey dhulkii inta la abuuray isagoon la fidinin baa layska daayay markaasaa samada ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo dhisay dhulkiioo isku duubanoo weli la fidininna waa yaalla
marka kadib baa la kala fidiyey abuurista marka dhulka ku horeeya dhisidana samada ku horeysa fidinta dhulkuna waa dambaysaa sidaas marka isku waafaqayaan iska war imaanayaan macna wal arda dhulkiina bacda dalika kaas kadib ayuu daxaha fidiyey dhulka fidintiisa maxaa laga wadaa fidintu waa fidinta macnaheedu waxa weeyaan dhulka dhexdiisa korkiisa waxa yaalo dhan baa laga soo saaray saasa laga wadaa fidinta oo macnaha waxa weeyaan aayadahan damba lagu fasiro waxa la yiri akhraja alla wuu bixiyay minha dhulka xaqiisa wuxuu ka soo bixiyay ma aha biyaheedii uu ka soo saaray waa biyaha lacabay wa mar'aha iyo daaqeedii uu ka soo saaray wal jibaala burihina arsaha wuu qotomiyay oo meelaha yaalaan buu qotomiyay dhulka korkiisa uu qotomiyay mataacan raaxayn lakum idinka laydin raaxaynaya darteed iyo wala an'aamakum xoolihiin idinkii xoolihiina laydin raaxaynaya waxa la isku hagaajiyay ee la isku rakibay macnaha sidaas marka wuxuu yaalaan fayda goorti jaa'ad ay timaado at-taamatu musiibadii shidada badnayd musiibadii masaa'ibta ugu darnayd al-kubra ee ugu weynayd masaa'ibta markay timaado yawma maalin markay timaado yatadakkaru uu xusuusanayo al-insaanu insaanki ma sa'a amalkiisa uu xusuusanayo oo waburizad la muujiyo al-jahiimu naarti jahiimana la muujiyo liman cid loo muujiyo yara arkay fa amma man ruuhi intaasi markay dhacaan فأما من روحي الدقاق وقي أدونك مركو جوي أو آثر الدورتي الحياة نرشي الدنيا الليدتي مدى الضنبك الدورتي فإن الجحيم النار جحيم هي إيدا أي المأوى مكانه ياتكيسا ميشوكوه يقول كيسوي وأما من روحي سخاف بقي مقام ربه هر استاقيس آخره هر استاقي يكبقي أو نهار ربي النفس النفتي عن الهوى وحي تعشها كالربي معصية أي دوني سنة نفط كالربي وكحكمي فإن الجنة هي إيدا أي المأوى مكانه ياتكيسي يقول كيسا يسألونك وحي كويدين يا نبي محمد عن الساعة ساعة وحكا ويدين يا ومحي لي أيانا قرموها هذه مرساها قطن سيقظ رسيقة وحلي لهذا يعني وحويا المركي أي مركب كأمدونتو أي بروسين كدقاتو أيا ليدا هذا رصد صاصي معنا قرما أي قطن سمي سايو أي إيماني سايو معنا في من محي بعد أديك النبي محمد أنت أدوه في من محي الشيء حديثات قصو قنتهاي من ذكراها الشيء دي حسيد ديدا محال أدوه كقصو قنت محمد كلاسو عطابة إلى ربك أنتي كا أي منتهاها لما تكيدو أحد ماشي كل ما نيسو علمي جادو وحق عليه إنما أنت أدوه منذر دقي أمباتا منذر من عد كو دقي أمباتا يخشاها الله كبقي ذاتك إلهي كبقى أمباتا دقو أدكتا يدين تاسالو ساري كأنهم وابا يغو يوم مالك يرونها أي أركيان وقيامة أي أركيان وابا يغو لم يلبثوا آنغان إلا عشية قلب أو أمس ضحاها يعني وحوي برق كذي أما قلب قلين هوري مثل قلين دنبات كلو أدونك سوچوكتين أي كشكنا يا معنا فإذا قلت جاءت أي تماتو الطامة طامة وحل هذا ومصيبة مصائب تكلو كسيد على سوء كحوك بديس تاسع طامة ليلة هذا ويد وشاي وحمر ريبتو قيامة مرعية ذي كم تاي فإذا قلت جاءت أي تماتو الطامة مصيبة دي وين قبلنيت الكبرى وين مصائب وقيامة يوم مال مركي تماتو يتذكر وحسوسنا الإنسان إنسان كما سعى وحوش قيسي عمل كيسي وحسوسنا روح والبوح حسوسنا يا عمل كيسي معاه حسوسنا يا لأن يسوى قرن بالغسور دقيقة مركي الديوان كما لا يكتو قرطي لغهور كينو عمل كا وقتيات سميسي ميشات كو سميسي قاب كدو سميسي واد حسوسنا روح والبوح يسمي مالك وحسوسنا يا معنا أو برزت لموتيو الجحيم جحيمنا لموتيو لمن عد لموتيو يرى أركيه dadkii loogu talagalay inay arkaan ba loo soo muujinayo jahannamo jahiimo waa la soo bandhigaya ilaan hadda way naga qarsoontahay ma aragna Soomaa banaanka la soo dhigayo kuwa loogu talagalay baa jira inay arkaan araga ay arkayaan cabsi iyo argagax inay u kordhiso iyo walbahaar kuwaas loo soo bandhigaya fa amma man ruuhi markay taasi timaado fa amma man ruuhi taqaqoqay oo xad gudbay adduunka markuu joogay oo waathar doortay alxayaata noloshii addunya ee liidatay noloshan adduunyu doortay oo muxuu ka doortay noloshii aakhiro iyo nolol diineed buu ka doortay midan buu garanaya
middan unbuu waqtigiisu ku mashquulsan yahay shaqo kaleeta male walbahaar iyo walwal kale male ninkii middan xun ee liidata ee dhammaanaysa doortay oo iyada door biday fa ina aljaxiima naarta jaxiima hiya iyada ayaa alma'wa makaanu hoyaadkiisa ilaa wuxuu ku badbaada ma soo shaqaysanin meesha unbaa gurigiisii xeradu ku xaroonayo halkaas weeyaan saas way macnaha wa amaa man ruuxii khaafa baqa maqaama rabbihi rabbigii hor istaagiisa ka baqay oo rabbigaa baad hortegi doontaaye maxaad la hortegi doontaa su-aashaasi u taalay rabbigaa waad hor istaagi maxaad diyaarsatay oo kuu yaalla ruuxii sidaa u baqi jiray oo wanahaa reebay annafsa naftana ka reebay canil hawaa waxay jeceshay naftu waxay rabto oo macsiyada iyo dembiga iyo jahliga iyo waxaan ilaahay raalli uusan ka ahayn naftaa jecele nafta ka hor istaagay oo ka xakameeyey fa ina aljannata jannada hiya iyada ayaa alma'wa makaanu hoyaadkiisa meeshuu ku hoyanayo oo galayo waa jannada rabbi subxaana wa tacala saas weeyaan nabi rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis baa ka sugan uu leeyahay jannada waxaa lagu xayndaabay waxyaalaha ay naftu necab tahay naartana waxaa lagu xayndaabay waxyaalahay naftu jeceshahay waxyaalaha naftaadu ay jeceshahay iyo balwadaada haddaad raacdo jaan naartii waad gashay maxaa yeelay xayndaabkii naarta kaa celin laha waad jiidhay adiyo naar waad ishaysaan naftaadu waxay rabta haddaad ka xakamaysana markaasi xayndaabkii jannadaad gashay oo jannadii adigu waad ishaysaan marka waxa weye wanaha nafsa cani ilhawaa ninkii janno doonayo naftaada ka adkow wey oo ka celi waxay rabto haddaadse balwadaada daacad u noqoto oo maalinba waxay kuugu taliso un aad daba gasho hadda waxa wey naarun bay ku wadaa meel wanaagsan kuma wado wey macnaha qiyaamaday ku weydiinayaanoo waxay leeyihiin goormo wey ilan aayaddu aad bay qiyaamada uga warrantay sooma yas'aluunaka way ku weydiinayaan nebi maxamedow cani isaacati saacaddii qiyaamaday wax kaa weydiinayaan oo waxay leeyihiin ayaana goormuu ahaaday mursaaha qotonsigeedu yacni markay qotonsanayso oy boroosinka dhiganayso imaanayso goormo weeye fiima maxay baad su-aashaasay ku weydiinayaan jawaabteedu maxay tahay jawaabteedu haddii anigu waxba kama ogi saas daraaddeed fiima shaygee dhexdii baad ku sugan tahay anta adigu nebi maxamedow min dikraahaa sheegiddeeda iyo xusideeda adigu maxaad kaga sugan tahay shaygee baad ku dhex sugan tahay ood qiyaamada sheegiddeeda iyo xusideeda kaga dhex sugan tahay waxaad ku sugan tahay ma garanaysid wey soo saas ma taqaani mal mas-uulu canha biaclamu min asaa'il wey fiima shaygee dhexdii baad ku sugan tahay anta adigu min dikraaha xusideeda iyo sheegiddeeda aad khalqiga u sheegto maxay baad kaga dhex sugan tahay macnaheedu waxa wey waxba kama garanaysid wey jawaabta ilaa rabbika rabbiga xaggii ayuu muntahaahaa saacadda dhammaadkeedu ahaaday dhammaadkeeda waxaa laga wadaa cilmigeeda garashadeeda iyo cilmigeeda iyo waqtigeeda xagga ilahay buu ku dhammaadaa ilaahay cid ka sokaysa oo wax ka og ma jirto walaa malakul jibriil walaa nebi maxamed walaa axad wax ka og ma jiro macnaha inamaa anta adigu shaqadaadu adiga ma aha inaad qiyaamada ka warranto waqtigeedana sheegto su-aashaa in lagu weydiiyana waaba gardarro adiga shaqadaadu waxa weeye inamaa anta adigu mundiru man dad ku u digaa tahay cid mid u digaya unbaa tahay yakhshaahaa baqaya yakhshaa baqaya haa saacadda ka baqaya saacadda dadka ka baqaya iska jira kuwa unbaad adigu u diga tahay shaqadaadu intaasay ku egto intaa wax ka dheeraado inaad cilmigeeda iyo waqtigeeda ka warantaa hawshaada maaha kaanahum waaba ayagoo yawma maalinka yarawna ay arkayaan haa saacadda ay arkayaan waaba ayagoo lam yalbasuu aan nagaanin oon adduunkii ku nagaanin ilaa cashiyatan galab aw amase duxaahaa galabtaas gelinkeedii horiya barqinkeedii mooye macnaha waxaa laga wadaa aakharo markii laysa soo saaro adduunkii muddo dheer ay soo jeegeen wuxuu la noqonayaa maalin gelinkeed tanoo ma gelin horaan joognay mise gelin dambe waqtigii dheeraa waa gaabanaya macnaha kaanahum waaba ayagoo yawma maalinka yarawna ay arkayaan haa saacadda lam yalbasuu aan nagaanin oon adduunka ku nagaanin ilaa cashiyatan galab mooye wax kale aan ku nagaanin aw amase duuxaahaa galabtaas barqinkeedii iyo gelinkeedii hore mooye aan xilli kale ku nagaanin hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi